السلام عليكم داوديال kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Banaadir Star Media qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya qarax ismiidaamina oo ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir dowladda federaalka Soomaaliya oo dalbatay diyaarado dagaal iyo hub casri ah xilli ay korodhay xiisada u dhaxaysa Itoobiya iyo Soomaaliya lagana cabsi qabo dagaal ka dhex qarxa labada dal madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre oo dowladda federaalka gaar ahaan hay'adda NISA ku dhaliilay weerarkii ay ku qaaday xarumaha shirkadda Hormuud ee magaalada Muqdisho qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararkeena u diyaar garoob ayagoo dhameystiran isu soo noqod haboon daawadayaal mar kale ku soo dhawaada wararka Banaadir Star Media oo dhameystiran fadlan daawade markasta xasuusna u xuska iyo xiriirka alle oo tuko salaada si ay ku soo gaaraan wararka iyo warbixinaha degdega ee Banaadir Star Media rukumo oo subscribe saaro channelkan mahadsanid magaalada Muqdisho oo qarax xooggan oo ismiidaamin ah ayaa ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir halkaasi oo qof nafti haliga ah uu isku qarxiyay qarax xooggan ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho sida wararku sheegayaan kaasi oo lagu weeraray xarunta maamulka gobolka Banaadir wararka ayaa sheegaya inuu isqarxiyay qof walxaha qarxa isku soo xiray qaraxa ayaa si rasmi ah waxa uu uga dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir waxaana war ka soo saaray taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed qoraal kooban oo ka soo baxay taliska ciidanka booliska ayaa lagu yiri qof nafti haliga ayaa isku qarxiyay banaanka hore ee maqaayada Al-Hindi oo ku taala degmada Xamarweyne ee dhabarka dambe ee xarunta maamulka gobolka Banaadir xilli ay eriyanayeen ciidamada ammaanka booliska ayaa sheegay inay ku dhinteen 3 ruux halka ay ku dhaawacmeen 2 qof oo kale goobta ugu dambeyn booliska ayaa sheegay in goobta ay wax ka dhaceen uu ka socdo baaritaan dhawaana la bixin doono faahfaahin buuxda kooxda al-shabaab ayaana sheegatay mas'uuliyadda qaraxan waxaana ay sheegeen in ujeedku ahaa in la beegsado xarunta maamulka gobolka Banaadir ee degmada Xamarweyne ku taala halkaas oo dhowr jeer oo hore ay kooxdu weerartay maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho waxaa ka socday howlgalla ammaanka lagu xaqiijinayo waxaana ay dawladdu kordhisay baaritaanada ay ka fulinayso goobaha la tuunsan yahay in ay gabaadka ka dhigtaan xubnaha xiriirka la leh ama ka tirsan kooxda al-shabaab dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku jirta qabanqaabadii ugu dambeysay iyo isku diyaarinta dagaal laga cabsi qabo in uu ka dhex qarxo dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya iyadoo oo dalbatay hub casri ah oo ay ku jiraan diyaaradaha wax duqeeya iyo sidoo kale gaadiidka casriga ah ee dagaalka oo ay taangiyadu ugu horeeyaan xilli ay korodhay xiisada u dhaxaysa labada dal ee dariska ee Soomaaliya iyo Itoobiya kadib faragelintii qaawaneyd ee Itoobiya ay ku sameysay madax banaanida iyo gobonimada Soomaaliya ee ay ku soo faragelisay ama ugu soo duushay qayb kamid ah badda Soomaaliya Itoobiya ayaan wali ka laaban raaligelin ka bixin xadgudubka ay ku sameysay qayb kamid ah badda Soomaaliya oo ay kala heshiisay madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi dowladda federaalka ee Soomaaliya sida aan ku helnay xog rasmi ah waxa ay dalbatay hub casri ah oo ay doonayso inay kula dagaalanto Itoobiya iyadoo oo dowladda federaalku dareensan in Itoobiya ay u soo diyaar garowday dagaal maadaama ay daandaansi cad ka wado qaybo kamid ah gudaha Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Somaliland Koonfur Galbeed iyo Jubbaland dowladda Soomaaliya ayaa dalalka saaxiibada la ah waxay weydiisatay in hub casri ah laga iibiyo waxaana wadamada ay Soomaaliya hubka ka dalbatay ugu horeeya dalka Turkiga halka oo la sheegay in Soomaaliya ay doonayso inay ka soo iibsato diyaaradaha dagaalka ee wadanka Turkiga lagu farsameeyay oo ay ugu horeyso diyaaradda la yiraahdo Bayraktar TB2 oo ah diyaarad casri ah oo wacdara ka dhigtay dagaalo badan haddana howlgal ka fulisa gudaha Soomaaliya waxayna dowladda Soomaaliya doonaysaa in ay soo iibsato diyaaradan casriga ah ee aan duuliyaha lahayn isla markaana ku wanaagsan goobaha dagaalka xukuumadda Muqdisho waxay sidoo kale doonaysaa inay iibsato hub iyo gaadiid dagaal oo casri ah oo ay ku jiraan taangiyada dagaalka iyadoo oo la sheegay in ujeedka loo iibsanayo qalabkan iyo hubkan casriga uu yahay in lagula dagaalamo labada cadow ee uu dhawaan shaaciyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inay Soomaaliya leedahay oo kala ah al-shabaab iyo Itoobiya dowladda federaalku waxay sidoo kale xog dheeri ah ka bixisay qaabka ay doonayso inay u difaacdo dalka ee la isaga dhicinayo Itoobiya guddiga arrimaha dibadda ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo su'aalo adag ka weydiiyay xiisada Soomaaliya iyo Itoobiya kusimaha wasiirka arrimaha dibadda ahna wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Ali Balcad ayaa waxa uu ka jawaabay kusimaha wasiirku sida ay dowladda Soomaaliya doonayso in loo difaaco badda Soomaaliya guddiga ayaa wasiirka weydiiyay su'aalo adag oo ku saabsan xiisada labada dal gaar ahaan sababta ka dambeysay dagaalka diblomaasiyadeed ee Soomaalida oo aad u gaaban guddiga ayaa sidoo kale wasiirka ku canaantay sababta ay dowladda Soomaaliya diblomaasiyad adag
u adeegsan la'dahay iyaga oo u dulmaray sababta loo qaadi la'yahay tallaabooyinkaasi waxayna wasiirka weydiiyeen sababta loo qaadi la'yahay dhowrkan tallaabo oo kale ah sababta aan dalka looga raacdayn safiirka Itoobiya sababta dalka looga joojin waayay waxa ay u soo dhoofisay Itoobiya oo qaadku ugu horeeyo sababta aan dalka looga joojin duulimaadka diyaaradda Ethiopian Airlines iyo in safiirka Soomaaliya uu joogay Addis Ababa uu wax ka ogaa heshiiska badda ee ay kala saxiixdeen Muuse Biixi iyo Abiy Ahmed wasiirka oo su'aalahaasi ka jawaabay ayaa sheegay in dowladda federaalku ay dhowr tallaabo qaaday tallaabada ugu dambeysay ee labada dal ay safaaradaha ku kala qaadanayaan ay soo wado dowladda federaalku oo ah mid ay ku difaacayso badda Soomaaliya kagana hortagayso damaca iyo xadgudubka Itoobiya Ali Balcad wuxuu sheegay in Soomaaliya ay diyaar u tahay inay baddeeda difaacato sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay qorshaysay inay qaado tallaabooyin kale arrimaha ciidamada waxa loo xil saaray dad kale oo ku hawlan sidoo kale arrimaha ganacsiga ayaa miiska u saaran dowladda waxayna qaadi doontaa tallaabooyin hor leh ayuu yiri Ali Balcad oo sheegay in dowladda Soomaaliya ay joojin doonto duulimaadka diyaaradda Ethiopian Airlines iyo qaadka ka yimaada dalka Itoobiya labada dalna ay si toos ah xiriirka isugu jari doonaan balse dowladda Soomaaliya ay sugayso shirka dhacaya 18 bishan ee dalka Uganda ka dhici doona kaasi oo madaxda urur goboleedka IGAD ay isugu imaanayaan lagana hadli doono xiisada ka dhaxaloosan labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya Itoobiya dhinaceeda waxay war cusub ka soo saartay xiisada kala dhaxaysa xukuumadda Muqdisho Itoobiya ayaa sheegtay in dowladaha gobolka gaar ahaan kuwa bariga Afrika ay ka warqabeen isfahamka ay la gashay Somaliland ka hor intaan kowdii bishan lagu saxiixin magaalada Addis Ababa Ridwaan Xuseen oo ah la taliyaha ammaanka ee ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa sheegay in dhowr bil ka hor ay diblomaasiyiin u direen wadamada bariga Afrika isla markaana lala wadaagay qorshaha isfahamka Somaliland iyo Itoobiya wuxuu intaa ku daray in waxa kaliya ee wadamada gobolku aanay ka warhayn uu ahaa aqoonsiga Somaliland saamiga diyaaradda Ethiopian Airlines laga siinayo Somaliland iyo qodobo kale balse heshiiska ay ogaayeen heshiiska Addis Ababa ee Somaliland iyo Itoobiya waxa Itoobiya loogu saxiixay dhulbadeed dhan 20 kilomitir si ay saldhig uga dhigtaan ciidanka badda Itoobiya ee aan haysan goob ay gabaad ka dhigtaan maadaama aanu dalkoodu bad lahayn Somaliland ayaana sheegtay in heshiiskaas ay aqoonsi ku bedelanayso balse dowladda federaalka ayaa qaaday tallaabooyin adag oo looga hortagayo damaca guracan ee Itoobiya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ka hadlay xiisada ka taagan magaalada Muqdisho ee ka dhalatay tallaabadii ay hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA irdaha ugu laabtay xarumaha shirkadda Hormuud ee Muqdisho NISA ayaa shalay xirtay xarunta ugu weyn ee Hormuud iyo Salaam Bank ee Muqdisho saacada kadib markii labada dhinac ay isweydaarsadeen eedo ka dhashay markii NISA ay xirtay shaqaale ka tirsan shirkadda Hormuud shirkadda Hormuud ayaa sheegtay in xarigaasi uu ka dambeeyay markii ciidamada NISA ay ka codsadeen in loo daabaco dhaqdhaqaaqa adeega lagu diro lacagaha taleefanada ee EVC Plus taasi oo shirkaddu ay sheegtay inay ka hor imaanayso shuruucda dalka shirkadda ayaa sheegtay inaysan xogta macaamiisha la wadaagi karin hay'adda nabad sugidda dhinaca kale hay'adda NISA ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku eedeysay shirkadda Hormuud in qaar ka mid ah shaqaalaheedu ay xiriir wada shaqayneed la leeyihiin argagixisada eedaasi oo NISA ay sheegtay inay ku ogaatay baaritaan ay samaysay inkastoo aysan soo bandhigin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha hore Xasan Cali Khayre ayaa tallaabooyinkaasi ay NISA qaaday si isku mid ah uga hadlay xanibaadda xarumaha iyo joojinta shaqada shirkadda isgaarsiinta Hormuud iyo bangiga Salaam Somali Bank waa mid dhaawac ku ah sumcadda dhaqaale ee dalka walwalna ku abuuraysa ganacsatada Soomaaliyeed ayuu hadalkiisa ku bilaabay Farmaajo madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya wuxuu kaloo yiri dalkeenu wuxuu ka soo kabanayaa duruufo naafeeyay dhaqaalaheena sidaas awgeed waxa muhiim ah in la dhiirigeliyo ganacsatada u soo dhabar adeegay xaaladihii adkaa ee dalkeena soo maray lagana fogaado in la wiiqo ganacsiga xorta ah ama la dhaawaco kalsoonidooda dowladda waxaa waajib ka saaran yahay ilaalinta amniga maalgashadayaasha ganacsatada iyo goobaha ganacsiga kuwaasi oo door weyn ku leh shaqo abuurka dhalinyarada horumarka iyo dhaqaalaha dalka sida awgeed waxaan ku baaqayaa in degdeg loo xaliyo tacadiyada iyo dhibaatada ay shirkadda Hormuud iyo Salaam Bank ay ka tabanayso dowladda federaalka ee Soomaaliya shuruucda iyo xeerarka dalka ayaa hagaya ganacsiga xorta ah iyo shirkadaha wadaniga ah wuxuuna siinayaa xuquuq iyo dhiirigelin buuxda si ay qayb uga noqdaan horumarka dalka guud ahaan ma jirto waqti uu wadanku uga baahi badan yahay wadajir iyo isku duubnaan si aan uga hortagno qataraha ummadeed ee nagu soo wajahan ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya
dhinaciisa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa isna ka hadlay khilaafka ka dhex qarxay hay'adda NISA iyo shirkadda Hormuud isagoo oo qormadiisa ku cadeeyay in Hormuud aysan u qalmin in loo adeegsado awoodda ciidamada dawladda. Khayre wuxuu sheegay in muddadii uu joogay xafiiska uu xogogaal u ahaa sida Hormuud ay muhiimka ugu tahay dalka isla markaana ay tahay canshuur bixiye xaq u lahaa in la ilaaliyo badqabka ganacsiga iyo muwaadiniinta iska leh. sidoo kale Khayre ayaa NISA ku dhaliilay sida ay awoodeeda ugu adeegsatay in ay xirto xarumihii shirkadda Hormuud ee Muqdisho taasi oo sida uu sheegay ugub ku ah dawladnimada Soomaaliya. waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanayseen Banaadir Star Media.